wararka ka imanaya degmada Buulaberde ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya ay saaka howlgal ay ka sameeyeen deegaano badan oo hoostaga degmada Buulaberde ee gobolka Hiiraan. Deegaanada howlgalka laga sameeyay waxaa ka mid ah Ceemooy, Ceel Daboole oo 20 kiiloomitir u jirta degmada Buulaberde waxaana saaka ciidamadu ay jareenba dhammaan isgaarsiinta deegaanadaasi. ciidamada dawladda ayaa burburiyay doomo ay ku xirnaa markaasi webiga Shabeelle kuwaas oo ay sheegeen in ay markaasi ka gudbi jireen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo baxsad ka ahaa howlgallada ay wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka iyo maamulka gobolka Hiiraan. howlgalladan ayaana ka socda gobolka Hiiraan oo ay markaasi iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo markaasi iska caabinaya ururka Al-Shabaab. saraakiisha ciidamada ee howlgalka hogaaminaysa ayaa sheegtay in aysan jirin wax iska caabin ah oo ay kala kulmeen ururka Al-Shabaab. ujeedka ugu weyn ee howlgalkan ayaa ahaa in la jaro doomo yar ahaa oo webiga ku xirnaa kuwaas oo saacadihii ugu dambeeyay ururka Al-Shabaab ay isticmaalayeen. عبد القادر محمد كالقاع على البنادر تي في مقالة مقدشو.